silsiladda ugu weyn ee farmasiyada ee Sacuudi Carabiya waxay ka bilaabatay laba dukaan oo kaliya oo ku yaalay magaalada Jidda. Sanadkii 1987 Cabdullaahi Aamir Al-Naadi ayaa aasaasay shirkadda Naadi Medical kadib markii uu sanad ka hor ka qalin jebiyay jaamacad isagoo haysta shahaadada dhaqaalaha. Waqtigaas suuqa farmasiyada ee Sacuudi Carabiya waxa uu ahaa mid kala qaybsan. Inta badan farmasiyadu waxay ahaayeen dukaamo yaryar oo madax bannaan, kuwaas oo lahaa silsilado sahay oo aan joogto ahayn, adeeg macaamiil oo xadidan, mana jirin sumad qaran oo dadku si weyn ugu kalsoonaayeen. Cabdullaahi waxa uu arkay fursad uu ku dhisi karo wax ka duwan kuwii jiray, balse ballaadhinta ganacsigu waxay qaadatay waqti. 20 sano kadib Naadi waxay lahayd ku dhawaad 200 oo farmasiyo oo ku baahsan boqortooyada. Sanadkii 2003 qoyska bin Maxfuus family ayaa iyaga oo adeegsanaya Sedco Holding la wareegay boqolkiiba 50 saamiyada Naadi. Maalgashigan ayaa dardar geliyay ballaadhinta shirkadda ee guud ahaan Sacuudi Carabiya, wuxuuna ka caawiyay inay isku beddesho shirkad weyn oo qaran oo ka shaqeysa tafaariiqda adeegyada caafimaadka. Maanta bin Maxfuus ayaa gudoomiye ka ah guddiga maamulka, halka Cabdullaahi Al-Naadi uu yahay gudoomiye ku-xigeenka. Markii la gaaray 2025 Naadi waxay lahayd in ka badan 170 farmasiyo oo ku kala yaala 138 magaalo, iyadoo sidoo kale bixisa adeegyo rugo caafimaad fog iyo madal farmasiyo oo internetka ah. Dakhliga shirkaddu waxa uu ka sareeyay 2.5 bilyan oo dollar. Kadibna waxaa yimid soo gelitaankii suuqa saamiyada IPO sanadkii 2022. Naadi waxay ku ururisay ku dhawaad 1.5 bilyan oo dollar suuqa saamiyada ee Sacuudi Carabiya. Baahida maalgashadayaashu waxay ahayd mid aad u xooggan, iyadoo saamiyadii la iibinayay lagu dalbaday 59 jeer in ka badan intii la soo bandhigay. Qiimaha saamigu waxa uu markii dambe gaadhay heerkii ugu sarreeyay oo ku dhow 55 dollar halkii saami, ka hor inta uusan hoos ugu degin qiyaastii 24 dollar bilowgii 2026. Dakhliga shirkaddu weli waa uu sii kordhayaa, halka Naadi ay sii wado ballaadhinta nidaamka adeegyada caafimaadka ee guud ahaan boqortooyada Sacuudi Carabiya.